السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وادين سلامي دمان أصحابتا ميل وبا دونيدا كجوجتان واني وهولالكين ساعبكين وردين بريان ولا سoctaan janalka waxa soo dhigaa waxyaabo madadaalo iska fani ah taasoo ugu wacan inaan ka caajisay waxyaabihii aan idin soo gudbin jiray insha Allah waxaan isku day doonaa inaan hooshi halkii aan ka soo bilaabo aanan jabin insha Allah maanta muuqaalkan waxa uu talgalay inaan idinku soo faa'iideeyo qaabka ugu fiican uguna wanaagsan loo isticmaalo tagiska haddii aad tahay youtuber waad la socotaa waadna fahamsan tahay tagiska faa'iidada uu leeyahay iyo sida janalkaaga uu horumarsiinayo balse dad waxaa jiraan aan fahamsanayn tagiska faa'iidadiisa iyo dad si qaldan u isticmaala tagiska maxaan isku day doonaa inaan muuqaalkan kugu soo gudbiyo habka ugu wanaagsan uguna fiican uguna heer sareysa ee loo isticmaalo tagiska faa'iidada uu leeyahay haddaan kuu sheego muuqaalkaaga markaad ku darto tagis waxaa laga soo helayaa qaybta ugu koreyso ee YouTube-ka taasna ku suurgelinaysa inaad hesho views badan iyo subscribe badan sida views iyo subscribe loo helna waxa kaalinta koowaad ka jiro tagiska oo tagis si fiican aad u adeegsato waxaad helaysaa subscribe badan iyo views badan insha Allah muuqaalkan wuxuu kugu soo gudbin doonaa habka ugu wanaagsan uguna fiican ee loo isticmaalo tagiska okay saaxiibayaal isku soo noqod wanaagsan hadda waxaan ku tus doonaa saddex qaabood oo aad muuqaaladaada ugu dari karto tagis qaabka koowaad wuxuu yahay adigoo isticmaalayo YouTube Studio barnaamijka YouTube Studio adigoo isticmaalayo ayaad muuqaaladaada ku dari kartaa tagis si aad ugu darto application-kan ayaa soo furanaysaa haddii uusan kugu jirin waxaan kuu soo dhigi doonaa linkigiisa hoos halkaas ka degso kadibna soo gal application-ka markaad soo gasho halkan ay ku soo gudbin doonaa halkan waxaad ku arki kartaa dhammaan fiidiyoyadii aad ku soo upload gareysay channelkaaga tusaale ahaan aniga waxaan soo qaadanayaa muuqaalkan waxaan doonayaa inaan ku daro tagis kadib muuqaalkii ayaan soo galayaa ama aan ku dhufanayaa qalinkaas kore aan sii taabanayaa markaan qalinkii kore aan sii taabto halkan uu ii soo gudbin doonaa halkan waxa ugu jeedaa title description iyo tag saddexdan qaybood waa inaad isticmaashaa haddaba qaybta koowaad ee muhiimada ee waxay tahay tagis saad u jeedo halkan waxaa ka tirtiraynaa tagiskan ku qoran meesha kadib waxaan halkan ku qori karnaa tagis anaga aan leenahay oo aan gacanteena ku qoranay qaabkan waa isticmaali kartaa waadna adeegsan kartaa inaad ku dirto muuqaalkaaga tagis halkan waxaad ku qoraysaa wax walbo maskaxdaada ku soo dhaco oo ku saabsan mowduucaaga ama videogaaga markaad halkan ku qorto wax ku saabsan videogaaga ama mowduucaaga hadhow marka searching-ka lagu qoro laga soo heli karo ayaad halkan ku qoraysaa tusaale ahaan anaga waxaan ku qoraynaa sadujidan waxaan ku qoraynaa mowduucaaga ha ahaado wax quseeyo videogaaga yacni tagiska ku qoraysa meeshan ha ahaado wax quseeyo videogaaga markaad qoraalka qorto waxaad u dhaxaysiinaysaa calaamadan yarta ah space-ka ama yacni calaamadan xirmada ah ayaad gelinaysaa meesha markaad dhameyso qorida ama yacni ku darista tagiska adiga aad xoriyada u leedahay gacantaada aad ku qoratay kadib waxaad taabanaysaa calaamadaas yar ee yacni safeta ah ee xagga sare kaaga muuqato si aad u save gareyso tagiskan ah halkan ku qortay waxaad taabanaysaa calaamadaas xagga sare kaaga muuqato ee safeta ah ayaad korkeeda taabanaysaa waa kay qaabka koowaad ee aad muuqaaladaada ugu dari karto tagis haddaba qaabka labaad ee aad muuqaaladaada ugu dari karto tagis wuxuu yahay adigoo isticmaalayo application-ka YouTube ama barnaamijka YouTube dhexdiisa adigoo ku jiro ayaad muuqaalkaaga ugu dari kartaa tagis si aad ugu darto waxaad soo furanaysaa YouTube-ka kadib waxaad soo galaysaa channelkaaga markaad channelkaaga soo gasho kadib waxaad imaanaysaa ama aad dul timaanaysaa fiidiyoyadaadii mid ka mid ah kadib saddexdaas ul ayaad taabanaysaa edit ayaad leedahay edit markaad dhahdo halkan ayuu ku soo gudbin doonaa halkan saad u jeedo calaamada hoose waxaa ku qoran tagis kadib halkan tagiska ku qoran ayaad ka tirtiraysaa waxaad ku qoraysaa tagis adiga aad gacantaada ku qortay tagiska aad ku qorayso ahaada tagis quseeya mowduucaaga ama videogaaga haddii aad ku qorto af English ama luqado kale ogow tagiskaaga laguma soo helayo qaybta searching-ka ee YouTube markaad tagiska qorto waa inaad xasuusnaataa inaad ku darto calaamadan yar ee space-ka ama calaamadan halkan hadda kaaga soo muuqato markaad qorto ama aad dhameyso tagiskii saad u jeedaa deetaan tagis aan ku daraynaa space yar u dhaxaysiinaysaa
taagiska aad qorayso. kadib markaad qorto oo aad dhameyso taagiskaaga waxaad taabanaysaa calaamadda sare. sidaas aad ku sameyn kartaa ama aad ugu dari kartaa muuqaalkaaga taagis. waana qodobka labaad ee maanta. qodobkan saddexaad uu noqon doonaa sidee ku adeegsan kartaa taagis qof kale uu leeyahay. yacni taagis qof kale muuqaalkiisa uu isticmaalay sidee adigana aad u isticmaali kartaa. waad isticmaali kartaa waxaad u baahan tahay application lagu magacaabo Tagio. linkigiisa waxaan idin soo dhigi doonaa description-ka ama muuqaalkan hoostiisa. halkaas kala soo deg. waxaan soo furanaynaa application-ka YouTube ama barnaamijka YouTube. barnaamijka YouTube ama application-ka YouTube ayaa hadeertan soo furanaynaa. markaan soo furano barnaamijka YouTube ama application-ka YouTube qaybta searching-ka markaas waxaan ku qoraynaa videoga aan doonayno inaan taagiskiisa helno. tusaalahaan aniga waxaan ku qorayaa waa kan videoga ugu horeeya waaye oo aan doonayo inaan helo taagiskiisa. kadib videoga ayaa soo copy gareynaysaa. videoga markaad soo copy gareyso kadib waad ka soo baxaysaa waxaad imaanaysaa application-kii aan ku sheegayay oo ah Tagio. application-ka ayaa soo furanaysaa. application-kan linkigiisa wuxuu idin yaalaa qaybta hoose halkaas kala soo deg. markaad soo furato waxaad taabanaysaa calaamadan hoose ee ku qoran tahay get. markaad taabato halkan ayaad xoog u riixaysaa kadib basta ayaad ku leedahay muuqaalkii aad soo copy gareysay. kadib jikin ayaad leedahay ama jik ayaad leedahay. markaad dhahdo saad u jeedo waa uu raadinayaa. markuu raadintu dhameeyo halkan si toos ah waxaad ka arki kartaa taagiskii uu isticmaalay muuqaalkiisa qofkan. yacni taagis waa waxaan oo dhan qoraal aad u jeedo waa taagiskii aan u baahnayn inaan helno. haddaba taagiskii markaad aragto waxaad imaanaysaa calaamadan hoose ee koobiga ah ama yacni qaybtan hoose ee koobiga aad u jeedo ayaad taabanaysaa. saad u jeedo koobigii ayuu ku sameeyay oo hadeertan taagiskii waad soo copy gareysatay. si aad u hesho waxaad imaanaysaa YouTube Studio. markaad soo furato waxaan doonaynaa taagiskii inaan muuqaalkii aan ku soo copy gareyno. kadib qalinka kore ayaad taabanaysaa. markaad qalinkii kore aad taabato qaybtan hoose ee ku qoran tahay taagis ayaad hoos imaanaysaa. kadib taagiskii aad soo copy gareysay ayaa halkan basta ku dhehaysaa. basta ayaan ku leenahay. saad u jeedo diidaya dib ayaan usoo laabanaynaa. qalinkaas ayaad ku dhufanaysaa. dib ayaan usoo laabanaa. qalinkaas ayaad ku dhufanaysaa. qalinka markaad ku dhufato meesha hoose taag ay ku qoran tahay ama taagis ayaad taabanaysaa. kadib xoog ayaad u riixaysaa basta ayaad ku leedahay wixii aad soo copy gareysay. haddaba saad u jeedo taagiskii aan soo copy gareynay halkan ayaan basta ku sameynay. waana kana aad u jeedaan taagiskii. markaad aragto save calaamada kore ayaad taabanaysaa. waa kana halkaas aad ku save gareysay taagiskii aad soo copy gareysay. haddaba waan rajeynayaa inaad videogan waxaad ka faa'iiday walaalihii ka qaaliga ah. waanigu ah walaalkii Nuurdiin oo idin leh waan rajeynayaa inaad videogan wax ka faa'iiday. waxaa inoo ballan muuqaalka xigo anigoo caafimaad qabo iyo adigoo caafimaad qabo insha Allah.